بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت ميل والبعض قد داونسان ضمان أصحابتي إذا وحنسح شمله يدين كعد سنة إن جنال كان قول تي في لايك سبرايب باي ساتان وحرمنا إن كهالو سفر كي فوش حما قابتر بدنا وأي دولة كينيا كوجبيسي قوان كي دولة فدرال كي صوماليا وأي ديار دقو صدرت مقالة كسمايو حرمت جوبة هوسه سفركي آدم برد دعالي أيان رواينا وحير كهالله سفر كسوحها ميت قيانة قرنا وضلكو كسو حد قد بي سي خلدان وصوق قري حتى ديارد وكيمي لمبر كيدي وحلقو قرية شروطها لقو دجيه عبسي وكبقايا دولة الصومالية إن ديار داس للسوردو ما هن مركي هوري دولة كينيا أي معمولي جدي خدك الصومالية ما دولة الصومالية حكومتها إلى لسنة isla markii shirka dhameeyay cala masaarkii 10 daqiiqo markuu qodbada akhriyay diyaaraddu way taagneed isla markii diyaaraddu waa noqotay iyadana waa cabsi meeshaas ka muuqata marka waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta ugu weyn oo ugu foolxumada badan oo uu sameeyay Aadan Barre Ducaale dhaqanka kuma jidho islaamnimada kuma jidho dadnimada kuma jidho in ragga loogu mahmaaho islaan wuxuu sheegay مهما يفولحن ودقن كإسلام كأن ملك سوقلي هذا آدم برد على وكما آدم برد على واحد لبان كترسن برلمان كينيا وأنا الشخص كسفوي خلطات كا هذا الله فوشحن إنه أجست مدح القرن هذا محد دولة صوماليا اللي قدبون دولة صوماليا وحال قدبون إن خراري كسر صارت دولة كينيا آدم برre wuxuu soo qaatay mahmaashi ugu shoosho xumeed uguna qaabka darneed waxaan ka cudur daaranayaa Aadan Barre ma yaqaan horta dhaqanka Soomaaliyeed ma yaqaan qofka islaamka waxa uu ka mudan yahay ma yaqaan ana wax badan ku fogaan maayo laakiin waxaan rabaa inaan sheego mahmahada yaraan rabaa inaan maqashiyo waxa uu sheegay islaan unsan jirin haday unsato meelo badan ay ka gubataa waa maamaha carbeed waa Soomaalida waxay dhahdaan islaan unsan jirin haday unsato meel ay ka guban jirin ayay ka gubataa hadda waxaan u malaynayaa Soomaaliya dad siyaasiyiin oo awal uusan jirin ayaa hadda uusanaya marka meelo badan laga gubanaya annaka haddaan nahay jaaliyadda ama siyaasiyiinta ama bulshada waxaan ka xumahay laakiin mahmahadaas anoo ka xun baadana waxa igala qaabdaran igala fulxun madaxda qaranka siyaasiyiinta meesha joogo qoslayay haddana ku faraxsan in madaxda qaranka la caayo la aflagaadeeyo hadalkaas aad iiga xanuujiyay kuleel iiga keenay waa meel kulul oo ku jira waxaan rabaa in hadalka aan maqashiyo foosho xun oo qaabdarada badan ugu dambeyn marka آدم برد على وحرب أنا فرين وجيدي دولة كينيا فرين ودرو كان آدم برد وحرب أنا أدرو آدم لو واحد برد دقن كالصوماليات واحد كلو برد دقن كإسلام كان برو واحد كون فانتاينا تاينين كينيانا واحد كون فانتاينا تاينين سواحلية هذا بدين إسلام يا شريعة مالك جمجرتو إن دد إسلامه بلغة الماما ددان شرين waxaan sheegtay in aad jeceshahay Soomaaliya inay horumar gaadho ma jeclid tug dhalatayo daalimkan waa la iska qabtaa Soomaaliya waxaa jeceshahay inay noqoto meesha ugu halaq baleenka badan uguna dhibaatada badan inay noqoto adiguna aad baraarto nuuc gaadhid waxaa tiri dowladda Kenya waxay caawisay Soomaaliya maxaa nagu caawisay waxa aad nagu caawisay soo sheeg waxaa tiri qaxooti muxuu yahay qaxootiga Soomaaliya ku amaanul dhibaataysan oo adishaan oo afufushaan oo ciidamada Kenyaanka ay fufulaan waxaan anaga hanoo sheegin waxaan rabaa in dowladda Kenya u diro arinta xuduudda Soomaaliya waa lama tabtaan dowladda Soomaaliya xukunta
waxaan rabaa inaan u sheego arrimahaas inay ka waantoobaan ayna iska joojiyaan ayna sugaan xukunka maxkamadda ICC dhibaato kasta ha dhacdo wax kasta ha yimaado taaka ka mida kama dhibcaan waay aadan baraan dhageysanayo dhahayo taaka ka mida oo dalka Kenya ay leedahay ma ogolaanayna inay Soomaaliya qaadato Soomaaliya ma adika dhulkan badda ugu dheer Soomaaliya leh Afrika dhibaatada ku haysato maxay tahay Soomaaliya afka qaadid ugu taagaysa waxa tiri dalkan weligood mayna dadaan xukumi jirin dadaan unsan jirin hadda unsanay farmaajo 20 sano wadankan xukumayeen weligood ay unsan jirin adigana unsan jirin oo Kenya tuugsanayo dhibaato kalena ku jiro waxaan ka codsanayaa dhibaatada iyo wax waqtiga la wareegaysa inaad dalka Soomaaliyeed ka diisid siyaasiyiinta madaxda oo mucaaradkan waxa uu sheegaya warka jooga dalkiina dhibaato u horseedina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliyeed tilbiya dawladeena aan jacaylka ku dooranay iska jir dawladeena iska jir dunjiga Soomaaliyeed meelu joogaba dadkeenu tilbiya dawladeena aan jacaylka ku dooranay iska jir dawladeena iska jir derba ka horeeyo jafliyo qodax baa dhextaalo jiqooyo lagama baxo rag baa hore ugu jaabe iska jir dawladeena iska jir derba ka horeeyo jafliyo qodax baa dhextaalo jiqooyo lagama baxo rag baa hore ugu jaabe iska jir dawladeena iska jir kuwa jira kula jiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaaga lo cadowga ku jabinaye iska jir dawladeena iska jir kuwa jira kula jiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaaga lo cadowga ku jabinaye iska jir dawladeena iska jir qabyaaladii waa jareexo dadkay ka jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabiyo waana subeele iska jir dawladeena iska jir qabyaaladii waa jareexo dadkay ka jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabiyo waana subeele iska jir dawladeena iska jir qaar baa jira jeelu qaba inaan qarankeenu jirin jalaafana nala rabo wanaagaw jixinjixayne iska jir dawladeena iska jir
jira jeelu qaba inaan qarankeenu jirin jalaafana nala rabo wanaagga u jixinjixayne iska jir dowladeena iska jir qulub kala jeedayo jabaabir kala maqnayd mid isku jidaye digninku jeedine iska jir dowladeena iska jir qulub kala jeedayo jabaabir kala maqnayd mid isku jidaye digninku jeedine iska jir dowladeena iska jir musuq waa joor falweyn oo jeebka lagu wada gurtaayo caruurtay jalinayaane iska jir